بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارة شرفت الآد بان إذن سودوينيا waxaan ku guda jirnay koorsadii cashier management system waxaana qaadanaynaa casharkeena sagaalaad ee kooriska casharka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Farxaan Cabdalla waxaadna kala socotaan akademiyada software casharkeena maanta waxaan ku qaadanaynaa 3 nuqdo ilaa 4 nuqdo oo aas ah waxayna kala noqonayaan casharkii hore haddaan dib idin xasuusiyo transactionska point of sale-ka sida maqaayadda cuntooyinkooda loo gado iyadoo discount ku jiro sidoo kale deyn iyo cash intaba waxaa laga rabaa marka ugu yaraan dhowr transaction 10 ilaa 15 ilaa 20 transaction oo qaar deyn yihiin qaarna cash yihiin inaad ku soo samayso casharkeena maanta waxaan ku qaadanaynaa discount split bill refund iyo receive payment oo ah discount inaan samayno iyo discountka sida loo settingkiisa loo saxo split billka sida loo kala qaybiyo refund sida transaction dhacay oo la dhameystiray sida looga laabto ama deyn ama cash mid ku rabo ha noqdo iyo receive payment oo ah macaamiil lacag noo keeno aan ku lahayn sida looga qabto midda koowaad oo discountka ayaan fiirinaynaa waxaan tegaynaa point of sale-ka products aan ku dhufanayno new aan leenahay kadibna create discount aan abuuri doonaa waxaana dooranaynaa sales discount category-ga wuxuu dhan qaybtan kale ee split-ka ah iyadana waa kala qaybinta dalabka tusaale laba customer ayaa hal order loogu wada adeegay ama hal dalab kadib lacagta qayb ayay bixinayaan mid kamid ah midka kalena deyna lagu taagayaa ama labadoodii kala bixinaya marka biilkii loo kala qaybinaya xagee laga tagay asagana point of sale kadibna session-ka soo furanaysa order-kii gelinayda kadibna split ayaa dooranaysa kadibna split leedahay refund haddii aan u celinayna macaamiil lacagtii kadib markii transaction-ka uu dhacay oo u dhamaaday isagoo draft ah waa tirtirid laakiin refund waa markii transaction-ku dhamaystirmo lacagtii ama la qabtay ama deyntii la dalaco kadib sida looga laabto ayadana session-ka soo furanaysa customer-ka magaciisa raadinaysa kadibna refund ayaa dooranaysa quantity-ga laga celinayo ayaa dooranaysa receive payment-isna waxa weeye macaamilka lacagta in laga helo kadibna waxaan tegaynaa accounting customers payments customer-kan dooranaynaa lacagta account-ka kadibna confirm aan isla bilaabno marka qaybta koowaad waxaan tegaynaa halkan oo cashier-ka inoo furnaa ah kadibna waxaan tegaynaa laba meelba discount-ka waa kasoo hagaajin karnaa qaybta inventory-ga ama inta products ku dhufano ayaan products ku dhufanaynaa haddii inventory aan ka tagno products aan ka tagnana isku meeshii way kadibna halka products aan ku dhufanaynaa then discount ayaan halkan raadinaynaa hadda ayaan rabaa inaan isla sameeyno marka halkaan aan tegaynaa new aan leenahay marka horena category-gana si fiican isaga fiirido marka new aan leenahay halkaan waxaan dooranaynaa sales discount kadibna waxaan dooranaynaa qaybta sales-ka tigta saar point of sale-kana tigta saar ka point of sale-ki tag category-giisa waxaan ka dooranaynaa discount qaybtan kale waxaan ka dooranaynaa taxiga waan iska tirtiraynaa halkan category-ga halkaa waa muhiim ah account-ka ay saameynayso marka waxaan dooranaynaa discount category ama discount kaliya waa dhihi kartaa marka create an edit aan leenahay kadibna halkaana muhiim ah waxaan dooranaynaa income account-ka oo aan ka dhigi doono sales discount qaybta expense account-ka isla isagana sales discount aan ka dhigaynaa kan hoosena waan ka tirtiraynaa waa account-ka ay kasoo muuqanada discount-kaas waana category-ga uu ku xiran yahay category-ga ayaa laga doortaa category-ga shaqada uu qabanayo waa discount-ka account-ka tare balance-ga ku xiran oo kasoo muuqanayo waaye oo lacagta kasoo muuqanayso qaybta accounting-kana iyadana waa laga soo xiri karaa oo account-ka markaan tagno halka income-ka iyadana sales discount aan dooranaynaa waa meel kale oo laga sameyn karo iyadana expense-gana isagana sales discount aan dooranaynaa marka category-ga booskiisi labadana gali karta oo category-ga hadda iska dhaafto isagoo dhan banaan labadaas ku qalanka booskoodi ku gali karta kadib halkan surface aan dooranaynaa point of sale-ka awal noo saxnaa unit-ka ama halbeega waxaan ka dhigaynaa piece iyagoo dhanbiisa noo ahaadaan then kadibna waa safeynaa point of sale-ka inuu kasoo muuqdaa waa iska xaqiijinay oo point of sale-ka tegaysaa then waa ka halka marka waxaan soo furanaynaa point of sale-kii
kadibna waxaan leenahay open register. halkaa waxaan hore usoo sheegnay, halkaas waxaa gelinaydaa akoonka margentiga ama EVC Plus-ka balancega markaas ku jira. marka inaga hadda waxba ma gelinayno, zero ka soo qaadaynaa. all waxaan leenahay meeshaan oo kale cashier Farxaana furtay, waxaan leenahay marka all accounts waa zero balance. kadibna open aan leenahay, dalabkii ayaan bixinaynaa oo tusaale ahaan waiterkan waiter Cali ayaa soo adeegay, ayaa dalab soo qaaday aan dhehe cabitaan, wuxuu soo dalbay avocado oo 3 xabo, 3 qof weeyaan isla socda. cabitaan dhexe ama waterka dhexe wuxuu soo dalbaday 3 xabo. foodiska cuntada ah Federation wuxuu soo dalbaday quantity-ga 3 xabo. sidoo kale suqaarna wuxuu soo dalbaday 3 xabo ka soo qaad. dhanka kale shaax oo kale waxaan leenahay shaax caanageel oo isagana 3 xabo. intaas ayaa loogu adeegay. kadibna waxaan tegaynaa discount. markaan rabno qiimo dhimisna u samayno, tusaale hadda $19.5 weeye. markaan discount u samayno $1.5 aan u reebaynaa oo $28 laga qaadaya. discount aan ku dhufanaynaa meesha, bareeskan ku dhufanaynaa $1.5 ayaan dooranaynaa, kadibna minus aan raacsiinaynaa. meesha iska fiiri minuska inaan raacsiino. marka $19.5 ay ahayd, $1.5 discount ay noqotay. waxaa lacagta laga rabaa netka ay tahay waa $28. kadibna bay aan leenahay akoonka lacagta lagu diraayo ka soo qaad EVC inuu yahay, then validate aan leenahay. kadibna haddii boonada la daabacayo sidaasaan ku daabacaynaa, haddii kalena cancel aan leenahay. sidaas waxaan ku muujinay sida discountka loo sameeyo. waxaan aadaynaa nuqdada labaad oo ahayd tusaale table floor 1 ayaa miiska afraad waxaa soo fariistay qofaa soo fariistay, wuxuuna dalbaday intaana cunto ah. kadibna $8 weeye. qofka soo dalbadana ka soo qaad inuu yahay 2 qof oo isla socota oo marka hore aan u qaadanay inay cash wax ku dalbanayaan oo ay lacagta bixinayaan. kadibna waiterkii dalab ka soo qaaday aan ku qabanay oo aan ku taagnay $8 waa sidaas. then oo hawlaheena kala iska wadanay, markii hadhow lacagta ay bixinayeen ay waxay dhaheen $4 aan diraynaa. $4 markaan dirayno, afarta kalena nin la yiraahdo Saalax Cali ayaa wuxuu yiri Saalax aniga buuga ii furan igu dalac $4. afarta kalena ninkaana bixinaya. waa split waay marka. waa biilka in la kala saaro. qaybta 3 dhibcood aan ku dhufanayna split aan leenahay. then kadib waa kan orderkay dalbadeen. beer hal xabay ka dalbadeen ma loo qaybinayaa marka. tusaale kan waxaan ka dooranaynaa hal xabo ahaa $4 ahaa, dalabka guudna wuxuu ahaa 8, marka $4 ayaa laga reebayaa oo qofka kale lagu dalacaa. 8da meesha si fiican u fiiri, orderka guud 8 ahaa, dalabka qofkan lagu dalacayana waa oo splitka loogu sameynayana waa $4. kadibna waxaa leenahay split order transferna waa dhihi karaa. transfer haddaan idhaahno maca miiska u wareeji waaye. miiskana miis cusub oo kale uu siinaya. haddaan split dhahnana miiskii hore ayuu biilka u laba beeraya. marka split markaan dhahno oo hadda ku dhufano xaggan soo fiiri qaybta orderka tag, maxaa arki kartaa waiterkii Cali $4 ku taagan oo waa midii cashka loo bixin rabo. midda macaamilka oo lagu taagaya kale oo aan iri Saalaxna waa kan waa $4. marka middan cashka marka hore qabo kale payment dheh, maadaama waiterka uu soo adeegay waiterkan lagu taago wixii cash ah oo aan magaca qof lagu qaban, lacagtii waa ka qabanaynaa. waxaa isku dhamaatay $4 oo cashka ahayd, sidaas ku dhamaatay. hadda waxaan isla hubinaynaa marka orderkii kale inuu taagan yahay oo waa kan orderkii kale waa taagan yahay. orderkii kale oo $4 ahaa oo aan kala qaybinay oo beerka aan gooni u siinay, waxaan leenahay customerka lagu taagayo sheeg waa create aan leenahay. hadduu hore u jirana halkaas aan search magaciisa iyo telephone numberkiisa midkood ku raadinaynaa. kadib waxaan leeyahay Saalax Cali waaye. Saalax telephone numberkiisa halkaan geli inoo save garay marka. kadibna waxaan leenahay pay Saalax marka maadaama uu deynaha waxaan dooranaynaa customer account.
halkaa waxaan leenahay customer account oo kan hooseeya deynta kadibna faaliyadan leenahay sidaas ayaan biilka ku kala qaybinay oo macnaheedu yahay laba qof aan u qaybinay qof cash aan ka dhignay oo lacagtii u bixiyay waiterka ka qabanay qofna waa deyn oo waxaan ka qabanay waxaan ku taagnay Saalax sidaas uu orderkan noogu dhamaa hadaa order iska tagtid wax order ma taagna waa midaan oo directiga ah waa dalabka hadda kadib bilaaban doono okay nuqdada ku xigta ayaan isla tagaynaa oo refund ah refund waxa weeye tusaale dalaba la dhiibay dalabkii waxaa la rabaa in laga laabto waana dhamaaday oo confirm uu noqdo halkaan meesha customer iskan ku dhufanaynaa ka soo qaad dalabka la dhiibay wuxuu ahaa waiter cali ka soo qaad waa dhacdo cash ah waiter cali aan ku taagnay kadib saddex dhibcood ku dhufo waiterkiina wuu noo dooran yahay ama hadduu customer ahaa qofka laga celinayo waaye oo refundka laga sameynayo kadibna refundka markaan sameynay halkaan waxaan dooranayaa refund waiterkan cali intaanoo shaqo qabta midaan waa midaan marka waxaan leenahay middaa labaad oo table 5 ay ku qabtay oo $4 ahayd middaa koobaad weeye ayaa laga laaban dhacdadan qalad ay ahayd marka afkaada hal xabo ah waa laga laabanayaa see looga laabanaa quantity tagaysaa wana gelinaya waa ka to refund hal xabo marka hore laga gaday halkeena wuu soo celiyay babayga tag hadana quantity dooro hal xabo geli barees dhan lama dooranayo cambe tag quantity geli hal xabo cambuulo tag quantity dooro hal xabo sidaas ayay dhacdada dhan u laabanaysaa $4 lacagtu iyada automatic isu gelinaysa ma la dooran karo laakiin quantity-ga ayaa dooranaysa mid kasta refund $4 sidaas ku laabanaysa kadibna waxaan leenahay refund $4 minus waa kan marka madayna qofka laga yareynayo oo marka hore madayna lagu taagay mise lacag ay ahayd EFC lagu diray waiter cali isaga deyn kuma taagno waxay ahayd cash sida daraadeed EFC ayaan dooranaynaa oo macnaheedu yahay akoonkaasi lacagtu ka jarmi doonta haddii cash deynta hana waxaan dooran doonaa customer account oo deynta laga yareynaya macaamilkaas marka waxaan leenahay EFC plus kadibna validate sidaas ay iyadana dhacdada inoogu dhamaatay okay qaybta noogu dambaysa oo ah macaamilka deymaha lagu lahaa inaan deynta ka qabano marka sideen ku ogaan karnaa macaamiisha deymaha lagu leeyahay halkaa waxaan ku dhufanaynaa gearka yarka kadibna waxaan leenahay backend session-kana waa xiri karnay oo hadda session-ka inaan xirno ayadana waxba noogama dhimanayn session-ka hadda waa xiri karnay kadib waxaan ku dhufanaynaa orders customers aan soo aragna deymaha taagan iyo deyn lagu leeyahay tusaale hadda maxamed cali $4 lagu leeyahay jaamac nuurna waxaa lagu leeyahay $9 nuur waxaa lagu leeyahay $8 sumaye waxaa lagu leeyahay $33 aw marka waxaan isweydiinaynaa saalax oo qofkii hadda aan deynta ku taagnay markii session-ka la xiro kadib ay ku dalacmeen session-ka intuu furan yahay lacaguhuna akoonka kama soo muuqdaan account receivable-kuna deynta kama soo muuqato maadaama session-ka uu wali furan yahay shaqadii socoto aan session-ka xirno si ay deynta uga soo muuqato account receivable-ka waxaan tegaynaa marka close register $28 difference ah halkaan gelinaynaa session-ka markaan xirnayna halkaas waxaan ku qoraynaa cashier-ka qofka xiray oo cashier Farxaan ah waxaan leenahay EFC plus oo ah $28 kadibna waxaan leenahay register sidaas ayaan kula soconnaa marka in session-kii inoo xiran yahay hadda aan backend dhahno kadibna waxaan tegaynaa qaybta orderska waxaan ku soo dhufanaynaa customers hadda aan isla aragno Saalax Cali waxaa ku taagan $4 marka waxaan rabnaa ugu dambeyntii receive payment oo ah macaamilka inaan lacagta ka qabano macaamilkan lacagta lagu leeyahay oo Saalax ah oo point of sale kan ka dhex aragnay waa inaan ka qaban karno marka lacagta laga qabanayo ayada lagama ahan macnaheedu in point of sale dhexdiisa lacag laga qaban karo lagama qaban karo ayada wax deyn hore ah deymii hore waxaa laga qabtaa halka waxaan tegaynaa accounting kadib waxaan ku dhufanaynaa customers halka waxaan ku dhufanaynaa customer waa deymihii waan ka arki karnaa laakiin hadda waxaan ku dhufanaynaa customers kadibna payments waa lacagihii laga qabanayay Saalax ayaan ka qaban rabnaa $4 payments aan uga qabanaynaa customer payments kadibna new aan leenahay halkaan waxaan ka dooranaynaa customerka magaciisa oo Saalax ah lacagta laga qabtay oo $4 akoonka lacagta la dhigay oo EFC plus ah halkaan faahfaahinta oo deyn hore oo lagu lahaa kadibna waxaan leenahay confirm sidaas waxaa ku dhamaaday
inaan deyntii macaamiil ka qabanay sidaan ku arki karnaa riboodan tegaynaa waxaan ku dhufanaynaa customers waxaan ka arki karnaa Saalax inaan waxba lagu taagnayn oo deyntii uu bixiyay oo zero ay tahay dhanka kale meel kalena waa ka soo arki karnaa haddii aan tagno report faahfaahinta dhan halkaan aan ka wada arki karnaa balance sheet waa hantida guud ee shirkadda kaashashka yaallo dhan halkaan aan ka ogaan karnaa deymaha naga maqan halkaan ka ogaan karnaa current asset hanti kale haddii ay tahay fixed asset hantida maguurtada iyo wixii lamida reportka haddii aan tagno profit and loss sorry halkan waxaa laga ogaadaa faa'iidada iyo khasaarada restaurant income dakhliga aan soo iibinay waa intaas discount aan sameynay waa $2 product sale discount minuska ahna isna waa discount waxa qarashka aan galnay waa halkan iyadana waa $250 sida daraadeed khasaaraan ku jirnaa oo $75 loss ah maadaama dakhligeena uu ka yar yahay qarashka aan galnay dhanka kale halkan waxaan ka arki karnaa tare balance oo ah reportka guud akoonnada dhan akoon walba waxa ku jira akoon EFC Plus-ka intaana ku jirta ending balance-ga Salaam Bank intaan EFC Plus-ka waliba kuma jirta waa minus macnaheedu waan lagu leeyahay waay sidoo kale halkan faa'iidada waxaan ka arki karnaa restaurant income-ka wixii dakhli uu soo xareeyay wixii qarasha discount halkaan ka arki karnaa restaurant cost dhanka kale halkan waxaan ka tagi karnaa aged receivable oo ah report markaan tagno aged receivable deymaha inaga maqan weeye macaamiisha aan deymaha ku leenahay mid kasta iyo deynta aan ku leenahay PDF oo la degi karnaa Excel oo la degi karnaa sidoo kale halkan report haddii aan tagno aged payable waa deymaha anagana lagu leeyahay supplier A ayaa wuxuu nagu leeyahay $150 waan ka sii gudbaynaa waxaan isla arkaynaa marka ugu dambeyntii qaybta point of sale-ka anigoo buubsiin doona qaybtan reportska halka report marka tagno orders way wixii order dhacay hadda aragtay inaad faahfaahintooda aragto wixii orders dhacay way yacni ala wixii la gaday cunto cabitaan wixii la gaday ayaga marka waxaa lagu arkaa qaabkan by category walba iyo inta ka gadantay qaybta measurement-ga haddii aad tagto margin-ka mid walba waxaa laga faa'iiday average cost-giisa line-kiisa sale-ka discount-ka total discount wixii ah halkan la wada arki karaa qaybta kale order-ka marka waxaa ka faahfaahsan midaana ka faahfaahsan in halkan ka tagtaa faahfaahsan qaybtan kale sales detail-ka iyadana waxaa laga daawacdaa maalinka session-ka wixii la xareeyay oo order-kana laga tagi karo iyadana taariikhda laga bilaabayo taariikhda lagu dhameynayo kadibna daawaco weey qaybtan kale session-kan ka arki karnaa isagana session-ka la xiray sessionada la xiray mid kasta kadibna waa daawacan karnaa mid kasta ay saameyntiisa qaybta products-ka waa isla aragnay orderka wixii dalab dhacay waa kuwan ayaga faahfaahsan qof kasta iyo wixii la kansalay wixii laga laabtay waa kana return-ka ahaa hadda return uu yahay rabtay inaad ogaato waa ku dhufanaysa waa kan refund ayaa ku qoran waana minus akoonka laga celiyo hadda rabtay inaad ogaato halkan aad ku ogaato report EFC Plus lacagta laga celiyo iyo wixii lamid ah qaybta session-ka ayadana waa session-iska la xiray mid kasta iyo waqtiga la xiray iyo inta lagu xiray faahfaahintiisa cashier-ka xiray wixii dhan la daawacan karo halka intagtida la daawacan kartaa qaybta waxaan soo aragnay payments waa lacagaha akoonada ku kala dhiceen akoon walba iyo deyn iyo cash EFC waa cash jeebna waa cash intaana waa deyn 8 transaction ayaa deyn customerskana waan isla aragnay halkaas ayuuna casharkeena maanta inoogu ekaan doonaa